xilli lagu guda jiro xilli roobaadka deerta oo qeybo ka mid ah Soomaaliya ay ka curteen ayaa saacadihii lasoo dhaafay roobab mahiigaan oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada waxa ay ka de'een qeybo ka mid ah gobolka Baay gaar ahaan degmada Buur-Hakaba ee gobolkaas. Wararka aan ka helayno degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka de'een roobab mahiigaan ah isla markaana ay soo dhaweeyeen bulshada ku nool halkaasi. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka curtay xilli roobaadka deerta oo xilligaani dad badan oo beeraley ah isu diyaarinayaan inay tacbadaan beerahooda. Degmada Buur-Hakaba iyo deegaanada ku dhow ayaa laga soo wariyay in habeenkii xalay ahaa ilaa waaberigii hore ee saaka ay ka da'ayeen roobab xoog leh kuwaasi oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada. Shacabka ku nool degmada Buur-Hakaba iyo konton tuulo oo hoos timaada degmada ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen roobabka xilliyadii lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay iyo deegaanada ku dhow. Degmada Buur-Hakaba waxa ay ka tirsan tahay gobolka Baay waxaana 180 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga aadan tahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dadka ku nool degmada Buur-Hakaba badi ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha iyo tabcashada beeraha ee dadkaasi ku nool degmada Buur-Hakaba iyo deegaanada ku dhow ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.